galab wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garooba warbixinadeena galabnimo inaad ka daawataan janaaladena YouTube-ka ah ee sirta wararka iyo Dabaashi TV waa galabnimo saaxiibayaal Arbacaha taariikhdan waxay ku beegan tahay 1 Maarso 2023 wararkeena saaxiibayaal qodobada aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona xaaladda ganaanshaha oo maanta ka jirta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo gurmadii ciidan xoog leh oo dhinacyada soo kala gaaray xogtii ugu dambeysay Laascaanood ee ku soo gudbin doona ay dhaqdhaqaaqa military magaaladaasi ka jira Somaliland oo dhinaca kale sheegtay inay qabatay hogaamiye sare ka mid ah kooxda Al-Shabaab oo u qaabilsanaa soo dejinta hubka iyo Somaliland oo sheegtay in dekada Berbera hub ay kala soo degi jireen kooxda Al-Shabaab tanina ay tahay fadeexad kale cusub macluumaad la yaab leh oo arintan ah iyo Somaliland xogtan daabacday ayaan ku soo gudbin doonaa xogta safarka madaxweynaha Soomaaliya ee ku wajahan magaalada Kismaayo iyo saddex arin oo madaxweyne Xasan ku qasbaysa in magaaladaas uu tago faafahinta safarka madaxweynaha ee Kismaayo iyo macluumaad cusub ayaan kaga hayaa saaxiibayaal ciyaal weeradii ugu badnaa oo lagu dilay magaalada Muqdisho iyo Al-Shabaab oo hadda u muuqda inay kordhiyeen beegsiga ciyaal weerada caasimadda ah kooxda Al-Shabaab oo beegsanaysa ciyaal weerada iyo dilalkii ugu badnaa kooxdaas ay ka fulisay Muqdisho saacadihii ugu dambeeyay ayaan ku soo gudbin doonaa dawladda Soomaaliya goordhow maanta waxay shaacisay in howlgal la sameeyay lagu qarijiyay 200 oo kamid ah dagaalyahanada Al-Shabaab howlgalkaas halkuu ka dhacay sida loo fuliyay macluumaadka howlgalkaas ayaan ku soo gudbin doonaa iyo waxa ay yihiin caqabadaha sababta u noqda dilalka ku soo noqda caasimadda Soomaaliya Muqdisho ayna ku soo gudbin doonaa faafahinta qodobadan kuba kale ayaan dul istaagi doonaa wararkeena saaxiibayaal ee galabnimo qayb ka noqon daawadayaasheena ku xiriir channelkeena YouTube-ka ee sirta wararka galab wanaagsan calaamada gudoon ee ku muuqata subscribe noo dhig gambalelkana taaban ugu soo biir waxay ka dhigan tahay in qayb ka noqoto daawadayaasheena sida maalinlaha ah u hela xogta iyo wararka halkan ku baahino soo dhawaada saaxiibayaal warbixinada Laascaanood goordhow ayaan eegi doonaa hase yeeshee warbixinada kale ayaan ka hormarin doonaa xaaladda Muqdisho waxaan si guud u eegi doonaa dilalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo kooxda Al-Shabaab oo mar kale xalay fulisay dilalkii ugu badnaa sida muuqatana kooxda Al-Shabaab ayaa hadda caasimadda ka fulinaysa dilal ay ku beegsanayso shakhsiyaad gaar ah iyadoo dawladda Soomaaliya gaar ahaan laamaha ammaanka dawladuna aysan qaadan ilaa hadda wax tallaabo ah marka la eego dilalkii ugu dambeeyay caasimadda ka dhacay warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dilal qorsheysan oo xalay siyaabo kala duwan kaga dhacay degmooyin ka mid ah gobolka Banaadir dilalkan waxaa fuliyay xubno ka mid ah mintidiinta Al-Shabaab waxayna ka kala dhaceen degmooyinka Yaaqshiid iyo Hilwaa sida lagu sheegay xog hadda soo baxday waxaana ila deegaanka ay sheegeen in halkaas koox hubeysan oo baskoolada sita ay dilal ay ka fuliyeen kadibna ay baxsadeen warka koowaad waxaa lagu qaaday maqaaxi ku taala xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid waxaana lagu dilay ugu yaraan 5 qof oo raga kadib weerarkaasi rasaas ayay israsaaseen kooban ayaa halkaas ka dhacday oo dabladii hubeysnaad iyo waliba kuwa kale waxaana la sheegay in markii dambe dabladii hubeysnaad goobtaas ay ka baxsadeen wararku waxay intaasi ku dareen in sidoo kale tira kale oo shacab ah oo goobtaasi ku shaaxeynaya maqaaxiduna uu dhaawac ka soo gaaray weerarkan sidoo kale koox kale oo hubeysan ayaa xaafadda Guday ee degmada Hilwaa xalay waxay ku dileen 2 nin taanu tirada ka dhigi karta dilalkii xalay dhacay ilaa iyo 7 qof marka la isku geeyo dilkii ka dhacay Yaaqshiid iyo kii ka dhacay Hilwaa kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan waxayna shaaca ka qaadeen kooxda inay dishay rag ka tirsan ciyaal weero iyo kuwa kale oo ka ganacsada maandooriyaha ah afayeenka kooxdaasi Al-Shabaab dhanka howlgallada u qaabilsan toddobaadkan gudihiisa ayuu soo saaray qoraal iyo shir jiraacid uu qabtay oo ku sheegay in Muqdisho ay ka bilaabi doonaan howlgal ay ku beegsan doonaan ciyaal weerada iyo kooxda maandooriyaha ka ganacsata waxaana muuqata in Al-Shabaab hadda ay ku dhaqaaqeen fulinta amaradii iyo go'aanadii kooxda ay soo saareen toddobaadkan dhinaca kale ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka laamaha ammaanka ee dawladda Soomaaliya ee ku saabsan dilalkii xalay ka dhacay degmooyinka Hilwaa iyo Yaaqshiid habeen hore yahayd markii sidaan oo kale isla shabaab ay dileen 2 dhalinyaro ah oo ku sugnaa meherad ku taala agaarka isgoyska Fagax waxaana la sheegay in meheradaas lagu iibinayo waxyaabaha drugska sidoo kale waxaa ka horeysay dil kale oo isla kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka tabeelaha Sheekh Ibraahim ee duleedka caasimadda Muqdisho waxaana ay ku dileen nin lagu magacaabo jiray Cabduqaadir Carab oo ay kooxdu sheegtay inuu ahaa madaxii ciyaal weerada
al-shabaab ayaa dhowaan waxay ku dhawaaqeen in muqdisho ay ka bilaabi doonaan howlgal nooc cusub ah oo ay ku beegsanayaan ciyaal weerada iyo ragga ka ganacsada maandooriyaha. tani markii go'aankaasi ku dhawaaqday kooxda muqdisho waxay galaysaa marxalad dilal ah oo kooxdu ay ka fulinayso wadarta marka la isku geeyo kooxdu xalay kaliya muqdisho waxay ka fulisay in ku dhow ilaa 7 dil marka lagu daro dilkii ka horeeyay dhacay tani markii kooxdu go'aankani ku dhawaaqday dilka caasimada kooxdu ay geystay ayaa ku dhow ilaa 11 waxayna al-shabaab dilkaasi ku qeexeen inay bartilmaameystarayeen oo kaliya ciyaal weerada iyo waliba sidoo kale kuwa kale ee ka ganacsada daraagiska. booliiska hay'adda nisa dhammaantoodba howlgalla ay sameeyaan haddana ma jirto howlgalkaasi natiijo ka soo naascadaatay oo la soo bandhigay. iskaba dhaaf dilalka al-shabaab mararka qaar dadka ayaa cabashay wulul xoog leh ka muujiya dilalka askarta dawladdu ay ku kacayaan waxaana ugu darnay dhacdadii argagaxa lahayd ee ka dhacday isgoyska Sinai oo dad badan oo shacab ay ku dhinteen hanti badan halkaas ay ku basbeeshay. dawladda Soomaaliya ayaa hadda u muuqata inay ku guuldareystay xasilinta amniga caasimadda. maamulka gobolka Banaadir ilaa hadda wax talaabo ma qaadan marka la eego 17 degmo ee gobolka Banaadir ee dhacdooyinka la yaab kale la soo diiwaan gelinayo. al-shabaab ayaa hadda u muuqata in go'aanadeeda iyo amaradeeda ay ka fulinayso magaalada Muqdisho inkastoo dawladdu ay toddobaadyo kor sheegtay in howlgal ka dhana kooxda la gudagalay. haddaba daawadayaal dhinaca kale aan raaciyo dawladda Soomaaliya goordhow maanta waxay shaacisay in howlgal dhacay lagu dilay ilaa 200 oo kamid ah dagaalyahanada al-shabaab. howlgalkan waxaa si qaas ah u fuliyay militariga Soomaaliya oo waliba ay ka caawinayaan diyaaradaha caalamiga ah oo dalka oo howlgalka qayb ka ah. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya waxaa looga hadlay howlgalkii ugu dambeeyay oo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay ka sameeyeen ay saaxiibada caalamiga ah oo duqeyn xagga cirka ah. war-saxaafadeedka Soomaaliya waxaa shaaca lagu qaaday in ciidamada hubinta ay kordhiyeen howlgalka ka dhanka kooxda al-shabaab waxaana howlgalkan uu ka dhacay deegaano dhaca Banaadir, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug oo meelaha hadda howlgalkan sida qaaska loogu fuliyay sida xogtan lagu daabacay warkan dawladda Soomaaliya maanta Arbaca ay sii deysay. waxaa xusuud mudan in markale ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya shacabka iyo saaxiibada caalamiga ah howlgalkooda uu ku baahay meelo kamid ah Banaadir, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta. qoraalkan waxaa lagu sheegay in howlgalkii ugu dambeeyay ee lagu dilay xubnaha gaaraya 200 ee al-shabaab kaas oo ay saraakiil ciidan iyo waliba sidoo kale xubno muhiim ah kooxda loogu dilay. waxaana la sheegay in howlgalkan uu mid qorsheysan oo diyaaradaha caalamiga ah ay duqeyn xagga cirka ay ka caawiyeen ciidanka militariga. waxaa kaloo lagu yiri war-saxaafadeedka godadka ay ku dhumaaleysanayeen qawaarijta deegaanada dhacay Hirshabeelle iyo ciidanka xoogga ay ugu daateen gudaha ugu galeen waana tallaabo u dhiganta dhamaadka al-shabaab. qawaarijtan waa la soo gabagabeeyay sida lagu yiri qoraalka. dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay amniga Muqdisho oo ay sheegtay in gacanta lagu soo dhigay 3 xubnood oo kamid ah al-shabaab kuwaas oo ka howlana falal amni darro. waxay kaloo dawladdu digniin u dirtay dhinacyada kale oo ay ku jiraan ciidanka dawladda Soomaaliya oo dilal caasimada ka geysanaya. marka laga soo tago qoraalka dawladdu ay sheegtay in qoraalka lagu macadeen meel qaas ah oo howlgalku ka dhacay iyo waliba deegaan ama tuulo hebel ah laakiin dawladdu waxay sheegtay in 200 al-shabaab la dilay. aan u gudbo qodobada kale wararkeena ka haray. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u ambabaxay magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah wuxuuna noqonayaa safarkii ugu horeeyay madaxweynuhu ku tago Kismaayo tan iyo doorashadiisii. haddaba 3 ujeedo ayuu xambaarsan yahay aan ku soo koobo. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay magaalo xeebeedka Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah. ila wareedyo lagu kalsoon yahay ku dhow Villa Soomaaliya ayaa janaalkeena sirta warar ku xaqiijiyeen safarka madaxweynaha ku qutumo waxyaabo badan oo asaga iyo Axmed Madoobe ay ka wada hadli doonaan arrimo badan oo qayb ka ah howlgalka iyo dagaalka. sidoo kale waxaa magaalada Kismaayo laga dareemayaa qabanqaabada iyo soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha oo goordhow ka duulay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. ciidamo dheeraad ayaa lagu daabulay magaalada oo la geeyay si gaar ah goobaha madaxweynuhu tagayo iyo qasriga madaxtooyada. ujeedka safarka madaxweynaha Kismaayo ayaa la xiriira xiisada gobolkaasi gada ka taagan sidoo kale dardargelinta dagaalka ayaa qayb ka ah in xal dhab laga gaaro mustaqbalka gobolka Jubbada Dhexe waana 3 ujeedo madaxweynuhu safarkiisa Kismaayo u daaran yahay.
madaxweynaha ayaa la filayaa in madaxtooyada Jubbaland uu kula shiro Axmed Madoobe iyo xubno kale maamulkiisa qodobo wax ku ool ah ay dhinacyadu ka wada arrinsan doonaan oo qaybka xiisada gobolka Gadow soo jiitameysay ka hor doorashadii iyo waliba xilligii farmaajo 2022 wajiga koowaad ee howlgalka dagaalka al-shabaab oo koonfurta gabagabo u muuqdo ayuu madaxweynuhu rabaa in Axmed Madoobe kala hadlo wajiga labaad ee Jubbada Dhexe kan ugu muhiimsan waana markii ugu horeysay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo booqasho ku tago Kismaayo tan iyo dib u doorashadiisii 15 May si kastaba Soomaaliya ayaa waxa ka jirta marxalad dagaal oo ka dhan ah al-shabaab iyadoo hore madaxda ugu baaqeen in deegaanadooda laga xoreeyo hase yeeshee dawladda ilaa hadda tallaabooyinka ay qaaday waxa qayb ka in Hirshabelle iyo waliba sidoo kale galmudug kaliya al-shabaab lagala dagaalamay al-shabaab ayaa hadda haysta fursado kale oo u muuqda in ay kooxdu ay ku soo laba kacleen karto wahagaag haddaba dhinaca kale lascaanood ayaan eegaynaa markan magaalada lascaanood ee xarunta gobolka Sool maanta oo Arbaca deganaansho weyn ayaa ka jirta waxa dagaal lagama soo sheegin magaalada laakiin dhinacyada magaalada ku sugan ayaa helaya hub aruursi xoog leh iyo waliba sidoo kale gurmadiye ciidan ilaa wareedyo lagu kalsoonaan kara ayaa inoo xaqiijiyay in ciidankii ugu badnaa ay Soomaaliland u soo daabuleyso aaga lascaanood Soomaaliland ayaa hadda lascaanood wixii ka joogta oo kaliya saldhigii military ee Gooja Cade waa saldhig military oo kooxda ka maamuleysay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn haddii saldhigaasi military Soomaaliland ay baneyso waxay ka dhigan tahay in gobolada Sool Sanaag iyo Cayn gacantooda ay ka baxdeen sidaa darteed madaxweyne Muuse Biixi ayaa amar ku bixiyay in ciidanka booliiska asluubta oo kuwa xabsiyada ilaaliya xitaa in ciidamada militariga lagu daro hubka ay qaataan Soomaaliland ayaa hadda wada isku daygii ugu dambeeyay oo rabto inay ku qabsato magaalada gurmad loo kala haran oo ciidamada oo ka kala yimid Berbera iyo deegaano kale oo ayaa la sheegayaa inay ku soo wajahayihiin saldhigga military ee Gooja Cade dhinaca kale ciidamada deegaanka SSC oo lascaanood haysta ayaa ina la sheegay gurmad aan kala joogsi lahayn inay ka helayaan deegaanada Puntland iyo waliba sidoo kale Xamar waxaana la sheegay in gurmadka ugu badan oo Puntland ka sokow uu jiro gurmadyo kale oo Muqdisho kaga yimid waxaa sidoo kale magaaladaasi lascaanood tagay saraakiil dawladda sida taliyii hore booliiska Xijaar iyo xubno kale oo ina dagaalka ku biiray marka la eego lascaanood oo maanta xasilan laakiin dhinacyada ayaa wali wada abaabul iyo hub aruursi magaalada ayaan huri doonin dagaalo mar kale ka dhaca dhinaca kale xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in kooxda al-shabaab ay ku sugan xuduudda Kenya ay qorsheynayaan in ay weerar ka geystaan qaybo kamid ah gobolka Sool sidoo kale kooxdu waxa warka ka soo baxay dawladda ama maamulka Soomaaliland oo lagu baahiyay TV-ga dawladda waxa kale lagu sheegay in kooxda al-shabaab ay hub ay kala soo degi jirtay dekedda Berbera oo ay Soomaaliland gacanta ku hayso sida maamulku ay qirteen sidoo kale warbixinta Soomaaliland waxa lagu sheegay in dekedda Berbera oo al-shabaab hub ay kala degi jireen balse ciidanka Soomaaliland hadda ay ninka howshaasi u qaabilsanaa ee hogaamin jiray kaas magaciisa ay ku sheegeen Yuusuf Cali Maxamed oo hadda gacanta maamulka ku jira ninkan wuxuu ahaa ninka al-shabaab hubka u soo dejin jiray dekedda Berbera kadibna waxa loogu qaadi jiray halkaas iyadoo la geyn jiray deegaanada ay ku dhumaaleysan Yuusuf waxay Soomaaliland ku sheegtay inuu ahaa madaxa guud ee kooxda al-shabaab ee gobolada Soomaaliland u qaabilsan booliiska Soomaaliland ayaa kooxdu sheegtay in waqti dheer ay ku raajogeen helida ninkan xogtiisana waa la hayay ugu dambeysay Soomaaliland ayaa sheegtay in ninkan xogtiisa la helay haddana gacanta lagu dhigay booliiskuna ay la xisaabtami doonaan warkii galab saaxiib yaal wanaga intaas